السلام عليكم ومبارك محمود صليبان iyo channelkeeni Tayadon Media waxaynu halkii ka saambaqaadi doonaa taariikhdii taxanaha inoo ahayd ee dawladda Cabbaasiyiinta qaybtii horena waxay noo joogtay sarkaalkii la oran jiray Muflix oo xoog kula wareegay magaalada Karaj kadib dagaal uu la galay ciidan uu watay nin kacdan waday oo la oran jiray Cabdulcasiis bin Abu Talib maantana waxaynu ka saambaqaadi doonaa dilkii loo geystay sarkaalkii la oran jiray Wasiif haddaba daawadayaal intaynan muuqaalkeena gudagelin fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena gambaleelka yar furo si aad ula socoto muuqaalada dambe aan soo gelin doono annagana ay noogu noqoto dhiirigelin ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta isla googii 253 ee hijriga waxaa la dilay sarkaal ka tirsanaa ciidanka Turkiga sidoo kalena siyaasadda dawladana muddo dheer ku soo jiray waana sarkaalkii la oran jiray Wasiif waxaana dilay ciidan gadooday kadib markii ay mushaharkoodii waayeen ciidankaas oo isaga u soo dacwooday ayuu meeshii oo ciidanka ka dejin lahaa oo ballanqaad siin lahaa canaan iyo hanjabaad ka horgeeyay markaas ayay iyaguna ku carabaabeen oo seef iyo sarabad kala daaleen halkii ayayna ku dileen iminkana waxaynu iman doonaa geeridii Maxamed bin Cabdullaahi bin Daahir isla gugaas waxaa geeriyooday Maxamed bin Cabdullaahi bin Daahir oo ahaa gudoomiyihii ka talinayay gobolka Baghdad geeridiisa kadibna xilkiisii waxa isku qabsaday wiil uu dhalay oo la oran jiray Daahir iyo walaalkiis oo la oran jiray Ubaydullah bin Ubaydullah tabadeedna khaliifkii al-Mu'tas billah iyo ciidankiina waxay taageereen oo xilkii la wareegay walaalkii Ubaydullah iminkana waxaanu iman doonaa curashadii gugii 254 ee hijriga iyo dhacdooyinkiisii u mudnaa gugaasna waxa shirqool lagu dilay sarkaal kale oo ciidanka Turkiga ka tirsanaa oo la oran jiray Buugaayare shirqoolkaana waxa soo maleegay khaliifka al-Mu'tas iyo saraakiil ka mid ahaa ciidanka Turkiga inta badanna loolanku wuxuu u dhaxayay saraakiisha ciidanka Turkiga oo iyagu awoodda kala riixanayay khaliifkuna mar walba garabyada awoodda isku haya ayuu qayb ka ahaa si uu yeelana ma lahayn oo inuu hadba cidii cadaadis saarta u adeego waa uu ku khasbanaa waqtiga kana boqorradii Cabbaasiyiintu waxay la haystayaal u noqdeen ciidankii iyo saraakiishii Turkiga ahaa gugaasna dhacdooyinkaas ayaa ugu mudnaa aynu nimaadna curashadii gugii 255 iyo dhacdooyinkiisii u mudnaa dhacdooyinkii gugaas waxaa ka mid ahaa sarkaalkii la oran jiray Muflix wuxuu dagaal ku qaaday gobolka Tabaristan oo dhowr sano ka hor uu gacanta ku dhigay nin ka soo jeeda firkii Cali bin Abi Talib oo la oran jiray Xasan bin Usayd dagaalkaasna waxa laga adkaaday Xasan iyo ciidankiisii markii la jabiyayna Xasan wuxuu u baxsaday dhulkii Daylaamiyiinta oo buuro fogfog oo qalabsan deganaa ciidanka Muflix watayna waxay la wareegeen gobolka Tabaristan sidoo kalena waxay isku ballaariyeen goboladii waqooyi bari xigay waxayna ku guuleysteen inay dhul badan oo gacanta dawladda ka baxay oo dhowr sanoba ay falaago iska haysatay ay gacanta dawladda ku soo celiyaan maamulkana ay gaarsiiyaan iminkana waxaanu iman doonaa dhinaca gobolka Khuraasaan markii uu daciifay maamulkii gobolka Khuraasaan oo xukumi jiray gobollo badan waxa ka hoos baxay xukunkii gobolka Karmaan gobolka Sajistan iyo gobolka Faris oo markii hore hoos iman jiray maamul goboleedka Khuraasaanna waxa xukumi jiray firkii Daahir bin Xuseen oo iyagu iska dhaxli jiray waqtigaas ay daciifeenna gobolka Sajistan waxa gacanta ku dhigay ninkii la oran jiray Yaqub bin Ulayd halka gobolka Farisna uu gacanta ku dhigay nin la oran jiray Ali bin Hussein bin Quraysh haddaba arrintaas markii ay dawladda dhexe ka war heshay ayaa khaliifkii al-Mu'tas wuxuu gobolka Karmaan u magacaabay ninka la yiraahdo Ali bin Hussein bin Quraysh oo isagu waqtigaas ahaa gudoomiyaha gobolka Faris dhinaca kalena Yaqub bin Ulayd oo isna ahaa gudoomiyaha gobolka Sajistan ayuu wuxuu isagana u magacaabay gobolka Karmaan isagoo doonaya inuu labadooda isku jabiyo oo ay isku ilka beelaan tabadeedna ninka guuleysta oo dhulkaas u adkaada ay dawladdu kala xaasho inuu cashuurta saamiga dawladda dhexe u soo diro waqtigaasna dawladda dhexe wax awood ama lahayn kaliya awoodeedu waxay ahayd inay cidii ay doonto u magacaawdo meeshii ay istiraahdo waa qabsan kartaa si ay daacad ugu noqdaan hadhow labadii nin ee dawladda dhexe looga soo magacaabay inuu mid waliba gobolka Karmaan gudoomiye ka noqdo waxay u diyaar garoobeen inay kala hadhaan
oo midkii gobolka u adkaada uu maamulkiisa u hadho. haddaba sarkaalkaas la odhan jiray yacquub binu layd wuxuu hayaan ka soo galay gobolka sajistaan oo karmaan deris la ahaa, isla mar ahaantana uu isagu mar hore hantay oo guddoomiye ka ahaa. wuxuuna doonayay inuu awooddiisa sii fidiyo oo gacanta ku dhigo maamulka gobolka karmaan. dhinaca kalena cali binu xuseen oo ahaa ninka loolanka kula jiray oo isna guddoomiye ka ahaa gobolka faris oo doonayay inuu isaguna awooddiisa sii ballaadhiyo, wuxuu diray ciidan uu hogaaminayo sarkaal la odhan jiray tawaq binu muqallas. sarkaalkaas oo ciidan lixaad la walwaalaya ayaa hayaan ka soo galay gobolka faris, wuxuuna agbaaray gobolka karmaan. isaga ayaana yacquub uga hormaray gobolkii karmaan oo mar horeba sii galay. yacquub binu laydna gobolka sajistaan ayuu ka soo hayaamay oo gobolka karmaan ayuu soo agbaaray. markii uu hal maalin socod u soo jirsadayna ayuu degay, isagoo doonaya inuu ciidanka ka soo horjeeda xaaladdiisa qiimeeyo oo xog fiicanna ka helo. yacquubna muddo bil ka badan ayuu meeshii degganaa, isagoo intaaba xuuraan iyo xogdoon ugu jiray oo sahamo iyo jawaasiis u diray ciidankii kale oo iyaguna difaac ku jiray. haddaba markii muddo la isdhowrayey oo qolo waliba wakhtigu ku dheeraaday, ayuu markii dambe yacquub sameeyey xeel dagaal oo wuxuu iska dhigay inuu dub isaga laabtay oo ku noqonayo gobolkiisii sajistaan, sidaasna uu kaga maarmay gobolka karmaan. haddaba sarkaalkii la odhan jiray tawaq oo ahaa sarkaalkii hogaaminayay ciidankii kale, markii xogtaasi soo gaadhay wuxuu u qaatay in yacquub gobolka karmaan u daayey. markaasuu isdhigtay oo hubkii ay ciidamadiisu dhigeen, waxayna bilaabeen cayaaro iyo caways. yacquubna markii uu helay xogta cadowgiisa oo ogaaday inay hubka dhigeen oo raaxo iyo tumasho ku jiraan, ayuu soo galay xawaare aad u dheer, isagoo raba iyagoo warmooga inuu qaflad ku qabto. hal maalin buuna ku soo jiray 2 maalin socod. tawaq iyo ciidankiisiina waxay ku war heleen iyadoo ciidan meel walba ka soo galeen oo la hareereeyey dhammaantoodba. markaas ayay ciidankii sarkaalkaas la odhan jiray tawaq ay meesha ka carareen oo waddo loo banneeyey ayay ka wada baxeen. sarkaalkii hogaaminaya ee tawaq ahaana gacanta ayuu ku dhigay yacquub, gobolkii karmaan ahaana sidaas ayuu gacantiisa ku soo galay. iminkana waxaynu u iman doonnaa yacquub binu layd oo gobolka faris ku duulay. yacquub binu layd markii uu karmaan gacanta ku dhigay ayuu go'aansaday inuu ku duulo gobolka faris oo uu madax ka ahaa cali binu xuseen oo isagu ahaa ninkii loolanka kula jiray. cali binu xuseenna markii uu ogaaday in yacquub binu layd ku soo wajahan yahay, wuxuu abaabulay ciidankiisii isagoo doonaya inuu ka hortago yacquub iyo ciidankiisa. wuxuuna isku dayey xeelado dagaal oo badan, laakiin xeeladihii uu abaabulay oo dhan yacquub wuu soo dhaafay. dabadeedna ciidankii cali ayuu weerar ku soo qaaday. markaas ayay jabeen oo jaanta rogeen. dabadeedna firxadkii ciidankii cali saldhiggiisii ayay ugu yimaadeen. markaas ayay ciidankii hadhaaga ahaa isaga la joogayna jaanta rogeen. ciidankii yacquubna waxay cagta u saareen ciidankii jabay ee cali binu xuseen, waxayna ku guulaysteen inay cali qudhiisa soo qabtaan, waxaana loo keenay yacquub binu layd. markaas ayuu amar ku bixiyey in la xidho oo xabsiga la dhigo. dabadeedna markaas ayuu khaliifkii muctas wuxuu u diray hanti badan, hadiyado qaali ah. sidaasna yacquub wuxuu ku qabsaday gobolka faris, gobolka karmaan iyo sajistaan. isaga ayaa intaas oo dhanna madax u noqday. iminkana waxaynu isla eegi doonnaa ciidankii turkiga oo ka kacay mushahar la'aan. ciidanka turkiga ahaa ayaa waxaa la soo gudboonaatay mushahar la'aan iyo saahaydii oo ku yaraatay, kadib markii qaar ka mida madaxda dowladdu ay khasnado gaara ka buuxsadeen hantidii ummadda. waxayna ciidamadu ku hanjabeen haddii aan saadkooda iyo mushaharkooda si degdega loo siin inay cagta marin doonaan dadka lagu tuhumayo inay hantida dowladda qarsadeen. haddaba nin la odhan jiray saalax binu wasiif oo ahaa sarkaalka ciidanka u qaabilsanaa saadka iyo mushaharka ayaa markaas wuxuu sameeyey dabagal uu ku baadhayo ragga hantidii boobay. dabadeedna wuxuu soo ogaaday dadkii hantida ummadda dhacay. waxaana ka mid ahaa dadkaas 3 nin oo kala ahaa axmed binu israa'iil, xasan binu mukhallad iyo ciisa binu ibraahim. 3 ninba waxay qoraa u ahaayeen madaxda sare. oo ninka la yidhaahdo axmed binu israa'iil wuxuu qoraa u ahaa khaliifka oo muctas billaah ah. xasan binu mukhalladna wuxuu qoraa u ahaa khaliifka hooyadii oo la odhan jiray qabiixa. dabadeedna sarkaalkan la yidhaahdo saalix binu wasiif wuxuu soo aaday dhanka khaliifka
si uu u dacweeyo saddexdaas nin ee hantidii dowladda boobay. markii uu u yimid khaliifkana waxa uu ka dacweeyey saddexdaas nin. goobtana waxaa ku sugnaa Axmed binu Israa'iil oo ka mid ahaa ragga laga dacwoonayo. Saalax binu Wasiif iyo Axmedna halkaas ayay isku afdhaafeen iyagoo hortaagan boqorkii maqaarsaarka ahaa. arrintaasuna waxay gaadhay ciidankii oo dibadda dhoobnaa. markaas ayay hal mar gudaha xoog ku soo galeen iyagoo aad u cadhaysan oo seefahana galka ka saaray. dabadeedna Saalax binu Wasiif iyo ciidankii la socday waxay afduubteen saddexdii nin ee ay ku tuhunsanaayeen inay hantidii ummadda dhaceen. wuxuuna u kacaystay gurigiisa iyadoo khaliifkii Muctasna uu xaadir yahay. dabadeedna Saalax nimankii markii uu meeshiisii geystay ayuu jirdil ku bilaabay isagoo doonaya inuu ka soo saaro lacagta ay xasaysteen. markii dambena waxay qirteen oo saxeexeen qoraal ay ku qiranayaan hanti lixaad leh inay qaateen soona celinayaan. waxaynu ku soo gabagabeynaynaa Muctas oo maradii laga dhigay iyo dhimashadiisii oo ku xigtay. khaliifkii Muctasna waxaa galaafatay oo dhibaato u keenay dadkii hantida dhacay oo hooyadiis iyo qoraagiisii ay ka mid ahaayeen. sidaas awgeed ciidankii Turkigu waxay casileen Muctas bishii Rajab ee gugii 255 ee Hijriga. ciidamadii kale ee ay ka mid ahaayeen ciidankii maqaaribaduna arrintaas way ku raaceen sababtoo ah iyaguba wax mushahara in muddo amay arag. dabadeedna ciidankii oo aad u hubaysan ayaa gurigii uu ku jiray khaliifkii Muctas hortiisa isa soo dhoobay oo ka dalbaday inuu soo baxo. dabadeedna Muctas wuxuu ku yidhi, war maanta waan xanuunsanayaa oo ma soo bixi karayee dhowr qof ii soo geliya oo fariintiina isoo gaadhsiisa. kadibna waxaa u soo galay dhowr sarkaal. dabadeedna saraakiishaas u gashay intay u galeen ayay lugta soo jiideen waxayna ula soo bixeen dibadda iyagoo weliba garaacaya. waxayna ku lahaayeen iska dhig xilka oo iscasil. markii dambena meel ayay ku xidheen Muctasna halkaas ayay xilkii kaga casileen kagana saxiixeen. dabadeedna meel cidhiidh ah ayay geliyeen oo ku xidheen. habeenkii buuna meeshii ku dhintay. khaliifkaas Muctasna wuxuu dhintay 2 bishii Shabcaan ee gugii 255 ee Hijriga. markii uu geeriyoodayna waxa la isugu yeedhay oo markhaati looga dhigay dhimashadiisa reer Banu Haashim iyo saraakiishii dowladda. waxana korka laga tusay inaan cidina waxba ku dhufan oo isagoo caadi ah uu dhintay. waqtigaasna cid awood u leh inay dhiigiisa ka hadashaana ma aysan jirin oo waa hore ayaa carabtii iyo reer Banu Haashimba xiniyaha laga saaray oo haybaddii laga qaaday oo magan bay iska wada ahaayeen. khaliifkaas geeriyoodayna wuxuu xukunka lagu hafray ku fadhiyey 4 sano iyo 6 bilood iyo 24 maalmood. walaalayaal, haddii eebba idma halkaas ayaynu ka sii ambaqaadi doonnaa. maantana halkaa haynoogu joogto. wasalaamu calaykum.